dagaalkii ka dhacay laascaanood maalimadii shalay ilaa hadda waxaa socdo soo bandhigida maxaabiis hub gaadiid dagaal iyo sidoo kale ciidamo aad u tiro badan oo ka soo goostay Mahdi Cambaashe. ciidamadaasi ayaa waxa ay ka sheekeeyeen qaabka ay uga soo baxeen Somaliland iyo waliba ku soo biiritaankooda SSC waxa uu uga dhigan yahay. muuqaalka ay ku daawan doontaan waxaana si guud u falanqeyn doonaa xaaladda ay hadda ay ku sugan tahay laascaanood goobihii shalay dagaalka ka dhacay. wadadii hawdka ee inta badan rafka ahayd isticmaali jireen ciidamada Somaliland maalimadii shalay waliba casar leer waxa ku guuleystay inay gabi ahaanba ay xiraan ciidamada SSC. barnaamijkan si guud waxay la falanqeyn doonaa saaxiibkay Faragod oo arrimaha si weyn ula socday Musabbixi ilaa hadda burcu soo dhaafi laayahay isagoo waliba khilaaf u dhaxeeyo ma soo kala dhaxgalay beesha isagoo soo jeeday iyo waliba beesha Habar Yunis in uu doonayo inuu xalliyo balse uu xal u laayahay. waxaan barnaamijka sidoo kale ku soo qaadan doonaa gabadhii Bishaara Bande halkii ku dambeysay iyadoo waxaan ogeyn la xiray la geeyay Mandheera xabsiga maxkamadna ilaa hadda 48 saacadood ka soo wareegtay aan la geenin cid soo booqan kartana aysan jirin oo horay loo diiday. Faragod marka hore soo dhawow waxaad noo dulmartaa si guud xaaladda maanta aagii shalay dagaalka ka dhacay iyo waliba iyo raggan askarta ah ee soo dhiibay iyagana soo dhiibitaankooda iyo wadada ay soo mareen iyo qaabkii processka ugu fudud. badano aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee bartan nagaga taxan. horta dagaalkii shalay dhacay dagaalka wuxuu ahaa nasiib darro ah oo la dhihi karo maamulka Somaliland wali waxay ku taagan yihiin isqaban waaga caqliga inuu shaqeeyo in ma garanaysaa ay fahmaan Soomaalinimada islaamnimada waxa meesha ka dhacay inay fahmaan baad moodaa maamulku guul daraystay inuu yahay. waxaa jira wali meydad dagaalkii shalay laga caray meeshii oo u badan ciidamada maxaan ku dhahay maamulka Somaliland oo buurta hodan iyo agagaarkeeda ilaa maraaga daadsan. ciidamadaasi meesha ku naf waayay waxay kor u dhaafayaan ilaa iyo 70 askari intii ay qaateen mooyaane inta meesha taala ayay u badan yihiin. marka ciidamadaasi waxa weeyaan meesha ku dhamaaday kulli waa wiilal Soomaaliyeed dib baan ugu soo noqon doonaa. waxaa jira shalay dagaalka meesha uu ka bilaabmay haddaan dib ugu noqono iyo sababihiisa. dagaalkani ha cuslaado laakiin culayska waxaa keenay nin taliya oo lagu magacaabo Jaamac iyo ciidan wato oo aan ahayn markii ugu horeysay inaan warbaahinta meeshan aan ka sheegno ayaa wuxuu ka soo goostay ciidamada maamulka Somaliland gaar ahaan kuwa hoostaga taliya ina Cambaashe hoostaga ayay ka soo goosteen kadibna waxa ka soo daba baxay baabuur kolonya iyo ciidan aad u fara badan oo maamulka Somaliland oo doonayay inay nimankaasi dabka saaraan ama ay gacanta mariyaan. nimankani qaab siyaasadeed ay u dhaqmayeen oo xiriir kala duwan ay waxay la lahaayeen ciidamada maamulka aan idhaahdo SSC ayay la lahaayeen. marka waxay u sheegeen in laba goorba markay soo baxaan lagu soo daba istaagi doono kadibna ay u baahan yihiin in laga caawiyo gurmad in la caawiyo gurmad ay u baahan yihiin. markay soo baxeen baabuur dheereeyay ay wateen wada raf oo kore soo qaadeen wadadii ayagoo haya ay ciidamada maamulka Somaliland ba ka daba baxay kadibna xogaga SSC ba waxay u fidiyeen gurmad degdeg ah. gurmadkii iyo waxa ishelay nimankii raacda reebta ahaa iyo nimankii doonayay ee maamulka Somaliland iyo nimankii raacda reebta ayaa selay sida ayuuna dagaalku ku qarxay. Jaamac iyo ciidankiisina way soo badbaadeen. salaadiinta cuqaasha iyo dadka deegaanka ayaana galcad furan ku soo dhaweeyay magaalada Laascaanood waxaana la arkayay Jaamac oo horboodaya ciidankiisii iyo hambaliyo iyo bogaadin dadka deegaanka u dirayeen. sidoo kale odayaasha iyo waasidu waxay baaq u direen ciidamada tirada yar iyo maamulka tirada yar ee wali ku sii jira maamulka Somaliland iyagoo ugu baaqay inay walaalahooda dib ugu soo noqdaan wadada iyo toobaduna ay u furan tahay ayna la midoo dadkooda shacabka ay la midoobaan inta yar ee ku hadhay. inta marka laga gudbo badano waxaa jira in aad moodo maamulka Somaliland inay wali qoys ka taagan yihiin. ciidamadii ugu faraha badnaa ayay labadii toddobaad ee ugu dambeysay ku soo dadgurayeen deegaanadaasi ha ku soo dadgurayeen madaxweyne Musabbixi oo ku sugan gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Burco oo doonayay inuu yimaado og ayaa wali imaanin. arrintaasina waxaa loo soo baynayaa khilaaf wali dhex taagan beesha dhexe oo ilaa iyo Berberays haya Berbera waxa lagu gubay baabuur baa lagu gubay waxa lagu laayay dad baa lagu laayay maxaan ku dhahay dhulkan dhexe ee
habar Yunus ay degaan maxaan ku dhahay habar awal baa ishaya ilaa iyo 3 nin oo ka tirsan ciidamada maamulka Somaliland oo habar Yunus ayaa lagu dilay Gooja Cadde dhexdeeda madaxweynuhu marka waxyaabaha uu imaanayo Gooja Cadde waa looga wan yahay xogta aan helayno ee maamulka ka helayno 18ka maxaan ku dhahay May waa looga wan yahay waxa weeyaan waxa uga weyn oo uga baahi badan inuu khilaafka soo kala dhaxgal ciidamada iyo beelaha walaalaha deegaanadaasi deega ee asaga madaxda ka yahay bari ka maalin ama aakhiraha noqoto ama adduunka noqoto la weydiin doono in ma garanaysa inuu walaalaya ayuu u yimid laakiin arintaas waxaad moodaa in furfur siyaasadeed dhan walbaba loo haysto maamulkiisa oo la doonayo in lagu fashiliyo madaxweyne Muuse Bixina inuu soo furo oo dadka Soomaaliyeed ee deegaanada degan gobolada waqooyiga inuu la tacaamulo waxay noqotay arin ma garanaysa oo ku guul daraystay waxaana rajaynayaa in sida ay ma garanaysaa qoladan la yiraahdo xogaga SSC ay uga xoroobeen ay u doonayeen inay xoroobaan in deegaanada kalena u xoroobaan ummadda Soomaaliyeedna gabi ahaan ay dib u midoobaan waa maasan tahay saaxiib hadii aan fiirin habeenii waxaan ku tabinay gabar wariye ah oo la yiraahdo Bishaara Baando in mataqaana gabadhaas ay mucaarad ku ahayd Somaliland Ingiriiska ka timid ay doonaysay in ehelkeeda oo burco ku soo soo booqato in gabadhaasi wajaale laga afduubtay isla markaana loo qaaday ilaa iyo mataqaana Hargeysa dad soo booqday ay ka mid tahay Sagal Mustafa Xasan iyo wariyaal badan oo caana inay u tageen isla markaana loo diiday in mataqaana ay la kulmaan oo xitaa loo sheegay inay gabadha xiran tahay laakiin aan la ogoleen in la arko 48 saacadood ka soo wareegtay wax maxkamadda lama gelin gabadha jirdil xooggan mataqaana loo geystay isbitaal lama gelin dawo looma ogolo halkaas mataqaana lagu abuusay bal gabadhaasi waliba xariga loo geystay mataqaana maxaad u hadashay والله gabadhan waxay ka imaatay London bay ka imaatay waa gabadh wariye waa gabadh caan oo Soomaalidu way wada taqaanaa inta badan waxay dhaleecayn jirtay ficilada guracan ee maamulka Muuse Bixi in dhawaaraba uu ku kacahayay waxaana jirtay in gabadhani hadda ka hor ilaa iyo 2 jeer ay si dhuumaalaysi ay ku tagtay magaalada Burco ee gobolka Togdheer oo ay asal ahaan ka soo jeedo waxay mid kale gabadhani taageertay xisbiga wadani ay aad u taageertay xisbi iyo asxaabta kale mucaaradka ay aad u taageertaa waxay u aragtaa in ay ka saxan yihiin dhanka dimuqraadiyadda horumarka iyo waliba qoriisu dhiibka dhanka maamulka marka la yiraahdo ay doonayaan asxaabta mucaaradka ee maamulka Soomaaliland ay ku doonayaan in maamulka Soomaaliland wixii ay 30 sano ku soo caanamaaleen inuu ahaa qoriisu dhiib dhanka maamulka marka arinta ay aad iyo aad u taageeri jirtay gabadhana waxa lagu haystaa iyo waliba kuwa fara badan oo wadamada ku nool sababta ay u taageerayaan asxaabta mucaaradka ee uga soo horjeedaan madaxweyne Muuse Bixi iyo maamulkiisa guracan ee doonaya in ay dadka wax walba ayagu doonayaan ay ku qasbaan hadaba gabadhan oo wajaale lagu siray oo niman dhalinyaro ah loo diray ayaa soo afduubay markii gacanta lagu dhigay ba ciidamada nabad sugidda ee maamulka Somaliland ayaa gabadha jirdil xoogan u geystay isla markiiba waa la dhaadhiciyo waxa la geeyay xabsiga weyn ee Mandheera ayaa la geeyay waxaana loo sheegay eheladii wariyaashii iyo dadkii qaraabada la ahaa inaan gabadhaasi la arki karin 48 saac ba ka soo wareegatay gabadha xidhaygeeda iyo dhibaatada loo geystay wali wax maxkamad oo la geeyay iyo wax dambi oo lagu soo ogay midna ma ay jirto waana inta badan arrimaha dhaca ee maamulka Somaliland la dhihi karo ku guul daraystay guud ahaanba dadka shacabka ee Soomaaliyeed deegaanada degan gobolada waqooyi uu ugu agajuglaynayo oo uga wado ku qoos qaado hebel baan saa u galay adigana hadda hadasho bari ka maalan oo aad damacdo deegaanadaada inaad dib ugu soo noqoto inaan adigana dhibaato lagu geysanayo laakiin arinta nasiib darrada ee aadka dadku ay uga waracsan yihiin ayaa ah in dhaqan laga soo minguuriyay jabhadii la oran jiray TPLF maxaan ku dhahay 27 sano xukumaysa dalkaas Ethiopia ayaa waxay sameyn jirtay in fanaaniinta wariyaasha iyo dadka siyaasiyiinta waaweyn ay qabtaan ayay laba u qiimin jireen taasi oo ay ku sameyn jireen qaarka dumarka ana way kufsan jireen oo intay kufsadaan bay muuqaal ka duubi jireen raggana waxay dhihi jireen intay TV iyo muuqaal ka duubaan ayay dhihi jireen waxa ka sheekaysaa inaad waxaraha kufsan jirtay inaad ariga kufsan jirtay looda inaad waxayn jirtay waxyaabo noocaas oo kale oo fuxshi ah oo bini aadamka aqliga bini aadamka aad iyo akhlaaqiyadka ka fog ayay aad ugu dhaqmi jireen qolada TPLF marka hata waxa la tilmaamayaa gabadhaasi xataa kufsi in loo geystay kullu iyadoo ba markay soo baxday sheegi doonto haduu gabadhan gabar wariyo caana weeye hadii kufsi loo geystayna kullu laazim way ka hadli ma way ka hadli laakiin qasab inuu jiro wala shay may qasab kufsi way u geysanayaan waayo nimanka jilama raggii bay waxyaabo fuxshi ah ku sameynayaan
dumar fara badan oo magaalada Hargeysa ku nool iyo Burco oo hadda ka hor ka hadlayna sidoo kale waxay u geysteen ma garanaysaa jidil iyo kufsi fara badan bay u geysteen dhaqankana waxa baray TPLF waa bartay oo sida la socotaanba madaxweyne Muuse Biixi markuu soo baxay doorashadiisii hore ma ahayn mid uu ku guuleystay boqolkiiba boqol Cabdiraxmaan Cire ayaa ka guuleystay sida daraadeedna kooxdii TPLF oo arinta ku lug lahayd maamulkan ayaa soo saartay marka waxa weeyaan waa arin xagga laga soo minguuriyay gabadhana waxa leedahay Ilaahay ka soo daayay gabadh oo maskiin oo waxay ahayd wariye gacanta cadawgeena ku jirta waxaan ugu baaqaynaa odayaasha ka soo jeeda gobolka Togdheer iyo Cuqaasha inay u istaagaan gabadhaasi sidii loogu soo deyn lahaa maamulka madaxweyne Muuse Biixi ku fashilmay baa la dhihi karaa maamulida gobolada waqooyi ama maamulka Soomaaliland wixii loo oran jiray 30 sano ay soo barbaarinayeen aad weyn waa maasan tahay daawadayaal wixii xoogo ka soo kordho arrimahaas insha Allah halka mid ku wadaagi doono maqal shirkadaas ku tinan wadaag